Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada taariikhda Abuubakar Sidiiq. Abuubakar Sidiiq radiyallahu canhu magaciisa dhabta waa Cabdullaahi bin Abi Qaxaafa. Hooyadiisu magaceedu waxaa la oran jiray Salma bintu Saqar. Qabiilkiisu waa Quraysh, lafta Taym. Wuxuu ku dhashay magaalada Makka 2 sano iyo 6 bilood kadib dhacdadii Alfiil ee Abraha al-Xabashi uu doonayay inuu ku burburiyo Kacbada barakeysan. Waxay ku beegneyd bishii Oktoobar 573, wuxuuna dhintay Jamaadul Awwal 13 Hijriyada oo ku beegneyd 23 Agoost 634 Miilaadi. Abuubakar Islaamka ka hor wuxuu ka mid ahaa madaxda Quraysh ee maamuuska leh, weligiina sanam ma caabudin, zino ma gelin, khamrina ma cabi jirin. Wuxuu aad ugu xeel dheeraa abtirsiimada qabaa'ilka Carabta ah oo idil, wuxuuna ahaa ganacsade deeqsi ah. Markuu soo islaamay kadib, hantidiisa wuxuu ku bixiyay diinta Islaamka, wuxuuna aad u jeclaa sadaqada. Sidoo kale wuxuu xoreyn jiray dadka dhiban ee adoonsiga ku jira. Waa qofka ugu fadliga badan ummadda Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, uguna iimaan weyn. Rasuulkeena wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, haddii la miisaami lahaa iimaanka Abuubakar Sidiiq, inuu ka sarmari lahaa dadka oo idil iimaankooda. Waa saxaabigii koowaad ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam ahaana khaliifkii koowaad ee dowladda Islaamka. Abuubakar waxaa loo yaqaani jiray Al-Sidiiq runsheege sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee rumeeyay Nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo rag ah. Waxaa ka horeeyay oo keliya Khadiija. Wuxuu la hijrooday Nabigeena magaalada Madiina al-Munawwara, waxayna gaaladii Quraysh duldhigeen madaxiisa 100 neef oo geel ah sida ay u duldhigeen rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Wuxuuna la galay Nabiga sallallahu calayhi wasallam godkii Thawr, waxayna ku jireen 3 cisho. Wuxuu ka qayb qaatay dhammaan dagaalada iyo dhacdooyinkii Nabiga sallallahu calayhi wasallam sida Badr, Uhud, Khandaq, Khaybara, Xudaybah, furashadii Makka iyo wixii la mid ah. Abuubakar wuxuu gacantiisa ku xoreeyay Cusmaan bin Cafaan, Zubayr bin Cawaam, Talxa bin Cubaydillah, Sacad bin Abi Waqaas, Cabdiraxmaan bin Cawf, Abi Cubaydah, Abu Salama iyo kuwo kale oo fara badan. Markii rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam uu xanuunka ku saaciday oo geeridii ku soo dhawaatay, wuxuu amray Abuubakar inuu muslimiinta salaada ka bixiyo. Kadib geeridii rasuulka sallallahu calayhi wasallam, asxaabta ayaa argagax ku dhacay. Qaar baa istaagi waayay, qaarkood dadkii ayay gebeen heer uu gaaray Cumar bin Khataab inuu uga cagjugleeyo ruuxii yiraahda Nabiga ayaa dhintay inuu seef la dhacayo. Laakiin Abuubakar wuu deganaa oo iimaankiisa ayaa sugay, xaaladaasna asaga ayaa dejiyay. Markaasuu saxaabada kulmiyay una akhriyay aayad Quraanka tilmaamaysa in rasuulka Alle uu bashar yahay, geeriduna xaq tahay. Kadib Abuubakar wuxuu ku yidhi, man kaana yacbudu Muxammadan fa inna Muxammadan qad maat, waman kaana yacbudu Allah fa inna Allaha xayyun laa yamuut. Kadib wuxuu akhriyay aayadda Quraanka, wamaa Muxammadun ilaa rasuul qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadurra Allaha shay-a wasayajzi Allahu ash-shaakiriin. Asxaabta ayaa Abuubakar u doorteen inuu noqdo khaliifka koowaad ee Islaamka, wuxuuna xilkaas hayay 2 sano iyo bilooyin. Wuxuu qaaday dagaallo waaweyn kuwaasoo uu la galay murtadiintii sakodiidka ahaa iyo kuwii nabinimada sheegtay sida Musaylama al-Kaddaab, Tulayxa iyo Sajaax. Wuxuuna ciidankiisa hogaamiye ugu dhigay Khaalid bin Waliid, kaasoo guulo ka gaaray dagaaladii oo idil. Markii oo geeridii ku timid Abuubakar Sidiiq, wuxuu isku yeeray saxaabada oo idil, wuxuuna ku yidhi, iga gadooma xilkii oo cidaad rabtaan u dhiibta. Saxaabadii ayaa ku yidhi Abuubakar, adaan ku dooranay, noo door ruuxaad rabto. Abuubakar wuxuu doortay Cumar bin Khataab, wuxuuna geeriyooday maalin Isniin ah bisha Jamaadul Aakhir 13. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena, waxaa si xushmad kaaga codsanayaa inaad noo saarto subscribe. Waad ku mahadsan tahay daawashada videoga like saar, subscribe dheh.
gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax waliba cusub aan soo gelino. Waad ku mahadsantahay daawashada video.